waxaa si habsami ah inoogu soo xidhmay shirweynihii maalgashiga ee gobolka Sool ee magaalada Laascanood ee maamulka SSC Khaatumo waxaan ilaahay ku mahadinaynaa in uu noogu si habsami ah noogu bilaabmay si habsami ahna noogu dhamaaday waxaan ummadda Soomaaliyeed u sheegayaa in sidii ganacsatadii iyo dadkii aqoon-yahanada ahaa ee ka soo qayb galay shirkan ay u sheegeen inay fursad aanu si fiican loo soo dhaweynayo fursadna ay u tahay cid kasta oo Soomaali ah ama aan Soomaali ahayn in lagu soo dhaweynayo ayna maal gashadaan gacmo furan ka maamul ahaan waa markii ugu horeysay taariikhda shir noocan oo kale uu ka dhaco deegaanada waxaan u mahad celinaynaa martisoorkii ama dadkii ka soo qayb galay soo ajiibay casuumaadii aanu casuunay sida sharafta lagu soo ajiibeen waan u mahad celinaynaa haday yihiin aqoon-yahano haday yihiin bangiyo haday yihiin ganacsato iyo haday yihiin bulshada qaybadeeda kala duwan kuwaasoo meelo fog u kala yimi haday tahay Kenya Ethiopia dawladaha dariska inuu nahay Soomaaliya qaybadeeda kala duwan waxaan ilaahay ku mahadinaynaa inaan shirkaas ku soo gabagaboway si nabadgelyo ah goboladan dadka sida loo ogsoon yahay goboladan waxaa laga sheegi jiray oo inta badan laga sheegi jiray inay yihiin gobollo aan xasiloonayn nabadgelyo aanay oolin cidi aanay tagi karin dispute lagu sheegi jiray shirkana wuxuu noqday shirkii ugu horeeyay beeniya ama we prove them wrong dadkii nooca ahaa ee lahaa gobolkani lamana imaan karo nabadna maaha lamana maalgashan karo waxaanu ku soo dhaweynaynaa cid kasta oo Soomaaliyeed gacmo furan baan u soo dhaweynaynaa waxaanu leenahay ku soo dhawaana gobolkiini aan cidna laga sheeganaynin doonaynana in cid kasta oo Soomaali si equally ah ay u maalgashato ay u degto horumarka iyo midnimada Soomaaliyeed ay qayb ka noqoto waxaa mahadnoo ah ilaahaynu ku mahadinaynaa in goboladani ay noqonayaan gobolka kaliya ee isku xidhaya Soomaali midnimadeeda iyo jiritaankeeda dhammaan waxaan u mahad celinayaa dadkii mar labaad ka soo qayb galay waxaan leeyahay waa aad bay u mahadsan yihiin sidii wasiirku mar dhaweeyay wasiirkayga dhigayga ah qorsheyntu uu ka dhawaajiyay shirkani ma noqonayo kii ugu dambeeyay ama kii ay ka qabsoomo goboladan wuxuu noqonayaa shir annual ah ama sanadla ah haddaanay kaba soo horeyno sida aan hadda wararka ku helayo diasporadii Soomaalida kala duwan ee qurbaha ku nool waxay rajeynayaan inay qabtaan xilliyada ugu horeysay waqti u helaan in shirkan mar labaad la qabto noocan oo kala ah ilaahay baan ku mahadinaynaa waxaan leenahay Soomaali ku soo dhawaada dal laba arrimood buu shirkan u noqonayaa midnimo waa midnimadii Soomaaliyeed oo halka aan u malaynayo fursadda kaliya ee aynu maanta Soomaaliya haysataa waa goboladan nabadgelyadooda midnimadooda iyo sidii loo dardargelin lahaa horumarkooda taasoo aynu kaga faa'iideysano in Soomaali midoodo kalabaad waxay noqonaysaa in hadalkii ahaa dalkani inaanu nabad ahayn u noqday arrin proof ah wadankani inuu nabad yahay laakiin ummado kale oo gacmo kale oo shisheeyay gacantooda ku jireen iyagoo abuurayeen dhacdooyin ka dhacay haday noqoto dil haday noqoto violence ka dhacay dhibaatooyinka lagu hayay maanta way ka gudubtay waxay u baahan tahay midnimo waxay u baahan tahay horumar waxay u baahan tahay in sidii horumarka iyo dhaqaalaha iyo kubcinta dhaqaalaha looga midoobi lahaa waxaan rajeynayaa inay shirkan noqonayo shirki kaliya ee mideeyay Soomaalina oo dhan isugu wada timi waa aad baad u mahadsantihiin waxaan leenahay soo dhawaada shirka ku xigana